السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواada بغداد Online Academy iyo koorsadeeni English for Career Development waxaan ku jirnay modulkii labaad oo uga hadlaynay sida loo qoro CV-yada ama resume waxaan ka soo hadalnay qaybtii la soo dhaafay oo qaybtii saddexaad part 3 sida name iyo contact address-ka loo qoro oo si professional ah halkan waxaan kaga hadli doonaa work experience-ga sidii loo qori lahaa In this part of the resume, job seekers list job titles, their current and former employer names, locations, dates of employment, and a brief description of the job duties they had. Okay, job experience maxaa lagu qorayo? Job experience waxyaabaha muhiimka runtii lagu qorayo waxaa ka mid ah current and the former employer name. Okay, title qofka uu soo ahaa, muxuu soo ahaa manager, accountant. Okay, current ama former employer name shirkadda uu u shaqeynayay amaba midda uu u shaqeeyaba because work experience-ga dabcan waxaa lagu darayaa current job iyo previous jobs sidoo kale waxyaabaha ka muuqanayo location-ka qofka loo shaqeynayo ama organization-ka loo shaqeynayay taariikhdii loo shaqeynayay dates of employment iyo brief description oo la describe gareynayo of the job duties they had okay mas'uuliyaadkii xilligii ay u shaqeynayeen this organization ay soo qabteen okay So marka this section of your resume is the part that future employers focus on most to decide if a candidate is a good match for the position. Okay, qaybtan oo CV-ga ka mid ah runtii waa qaybta dadka employer-ka ah ee focus-ka u saaraan. Okay, because runtii adduunyada maanta people care about what you can do with what you know, not necessarily what you know. Mana adduunyada maanta shirkadaha iyo organizationada particularly employers-ka ma eegaan qofka waxa uu yaqaano okay what you know lisma weydiiyo waxa la is weydiiyaa maxaad ku sameyn kartaa waxaad taqaano okay that is why shaqooyinkii aad hore u soo qabatay iyo midda aad haysaba macno weyn ay ku fadhisaa because inaad job experience leedahay waxay ka tarjumaysaa in waxaad soo baratay aad ku shaqeyn karto maadaama marka runtii qaybtan ay tahay qayb aad muhiim u ah employer-kana aad u daneynayaan inay wax badan ka fahmaan waxa muhiim ah qofku inuu noqdo honest in describing their duties because hiring officials check with past employers okay qofku inuu honest noqdo oo runtii si daacadnimo ah oo uga hadlo work experience uusan ka beer abuuranin organization uusan u shaqeynin oo dhihin waa u soo shaqeeyay waa sidoo kale inuusan ka been abuuranin shaqadii uu soo haayay uusan hore u soo qabanin ama shaqo uusan ka shaqeynin uusan sheeganin inuu ka soo shaqeeyay taas number 1 uma wanaagsana mustaqbalkiisa shaqo because organizationada waxay jeegareynayaan employer-kii adiga waxaad sheegatay for example shirkad X inaad ka ahayd accountant shaqooyinkaasna aad ka soo qabatay okay qofka hadii marka arintaas ay noqon weyso mid runa organization-ku uu la xiriiro shirkad X oo ay weydiiyaan hebel ma idin soo shaqeeyay haduu idin soo shaqeeyay position-ka soo qabtay waa maxay responsibility-gii u qaabilsanaa shirkadan hadii waxaad CV-gaaga ku qoratay ay ka duwan yihiin waxa la sheego taas automatically waxaad ku weyn kartaa shaqadaada absolutely waxa kale oo runtii lagu suurtagal ah in xataa maxkamad lagu tiigsado maadaama aad dishonest ahayd so marka runtii work experience-ga dadka qaar runtii waxay u qaataan wax fudud waxay rabaan iska qortaan shahaadooyin been dabcan education waan u imaan doonaa shahaadooyin aan jirin waa la iska qortaa laakiin arintaas runtii waa arin very serious ah Soomaaliya waxa laga yaabaa inta badan inaysan dhicinba in employer-kii ii sheeg la weydiiyo laakiin runtii employer-ka aad baa la isku weydiinaa waxaan xasuustaa organization aan u shaqeyn jiray qof baa shaqo soo doontay oo aniga runtii department-ka mas'uul aan ka ahaa qofkii CV-giisi markaan gedgedinay waxaan ogaanay inuu u shaqeeyo organization kale aan xiriir leenahay okay oo reputation-keedana aad u fiican yahay simply waxaan la xiriirin organization-kii oo waxaan weydiinay okay qofkan ka warama xaalkiisa sababta uu soo tagay maxay tahay waxaana loo sheegay marka in la soo ceeriyay because wuxuu ku dhaqmay wax akhlaaq dara ah okay while anaga markaan interview ka qaadnay oo aan wareysanay oo noo sheegay in asaga iskiisi shaqada ooga soo tagay so marka runtii qofka xataa hadii la soo ceeriyay oo shaqadii laga soo ceeriyay waa inuu xataa run ka sheego طبعا arintaas interview markaan tagno ayaan si tafaasiil ah uga hadli doonaa insha Allah tabaaraka wa taala
Because a resume is only 1 or 2 pages long, it may not be possible to list all your experiences. طبعا dadka waxaa laga hadlayaa experiencega badan oo intaasoo sano 10 sano 15 sano soo shaqaynayay maadaama CV-ga uu yahay hal ilaa iyo laba page waxaa adkaanayso in all the job experiences oo dhan uu list garay. That is why qofku waa inuu doorto the most appropriate one, the one that best show your skills for the job. But that is why حتى waa inaad kala doorato work experience-ga depending on shaqada aad gudbisanaysid. haddaad macalinimo gudbisanaysid oo in qayb ka mid ah job experience-ga ee macalinimo ku saabsan tahay, focus ka saar macalinimadii. haddii shaqada aad gudbisanaysid ay xiriir la leedahay maamul iyo maareyn, okay, oo qayb ka mid ah your work experience ay la xiriirto maamulka iyo maareynta, ayada xooga saar. This is the idea. طبعا halkan waxaan ka hadlaynaa dad years of experience iskale, laakiin qofka hadiiba experiencegiisa 2 sano 3 sano ama iska tahayba laba meel uu ka soo shaqeeyay, so طبعا qofkaas oo kaleeto choice badan ma leh, waa inuu wada qoro waxa uu ka soo shaqeeyay. Job seekers list their experience in reverse chronological order. This means they start with their current or most recent job, then the list continues backwards by time order. Okay, saan hore usoo sheegnay cutubkii lasoo dhaafayay ama qaybtii lasoo dhaafayay, job experience-ga markii la list gareynayo la qorayo, qofku wuxuu ku bilaabayaa the most recent, shaqada ugu dambeysay. haddii uu weli ka shaqeynayo current job ayuu ka bilaabayaa, kadib shaqooyinka. haddii uusan hadda shaqeynaynin, shaqadii ugu dambeysay uu kasoo shaqeeyay ayuu ka bilaabayaa, and so on and so forth. So marka 2020 2019 2018 2017 saas baad u soconaysaa, because qofka runtii shaqadan raba inuu ku siiyo wuxuu rabaa inuu ogaado goorta ay kugu dambeysay inaad ka shaqeyso shaqo la mid ah shaqadan hadda aad codsanayso. This is really very very important. And for example, macalinimaad codsanaysaa, macalinimana 10 sano ka hor kugu dambeysay, waxaa laga yaabaa employerka inuusan interest badan uusan siinin oo la yiraahdo ninkan macalinimada mar hore ugu dambeysay, even forgot how to teach. So marka runtii that is why employerka ay fiirinayaan your current and most recent job. طبعا each entry or work experience la gelinayo was separate but contains all of the following information. Okay, entry walbo shaqo walbo aad ka soo shaqeysay entry different ay leedahay, laakiin mid walba waxay ka kooban tahay job title, shaqada soo qabatay, teacher ahaa, accountant ayaa ahaa, employer name, shirkada u soo shaqeysay, hormuuda u soo shaqeeyay, jaamacad city ama simadan u soo shaqeeyay, location-ka ay ku taalo city iyo simad iyo hormuud ayaad sheegaysaa Muqdisho, dates of employment, sanadii aad ka soo shaqeysay 2015 ilaa 2020 2018 ilaa 2019, and a brief description of job duties. Si brief ah marka waxaad sifeynaysaa shaqada markaas aad haysay waajibaadkii ku saarnaa. bal aan isla eegno experience-ga amaba example-ka halkan aan ku haysano. qofkan waxaa la yidhaha experience office assistant, waxa waaye job title, remember University of California, waxa waaye organization-ka loo shaqeynayay, English language programs. Okay, xilliga qofka uu u shaqeynayay 2009 ilaa present. waa maxay howlihii uu soo qabtay? Manage reception and telephones for 40 persons office, develop database to track inquiries about application status, train temporary workers in office producers. halkan eeg waxaa la isticmaalay manage, develop iyo train. waa present simple. maxaa present simple loo isticmaalay? Because waa shaqada ilaa hadda qofka uu ka shaqeeyo waa present, ma aha wax horey loo soo dhaafay. up to now qofkan shaqada waa ka shaqeeyaa, that is why halkan wuxuu u isticmaalay present simple. laakiin halkan ila eeg program assistant, khibrad kala waaye, xagee international student office oo ah University of California 2006 2009. mas-uuliyaadku soo qabtay arranged alid past simple, assisted past simple, reorganized past simple, because waa wax horey looga soo tagay. Now, notice the use of present tense verbs because this is her current job. You should also notice that the verbs used are called action verbs because they clearly explain what a person is doing. halkan waxaa la isticmaalay action verbs. waxbaan manage gareeyey, waxbaan develop gareeyey, waxbaan train gareeyey, okay, waxbaan arrange gareeyey, I assisted, I led, I managed, I recognized, So this is really very important. When describing experience, many job seekers usually use a
bullet list of 3 to 5 lines. Okay, markii shaqada la sifeynayo qofku waxyaabo uu soo qabtay inta badan waxaa la isticmaalaa bullet oo ka kooban 3 to 5 lines sida halkan aan soo aragnay. There is no punctuation at the end because these are not complete sentences. Ma aha punctuation lama isticmaalayo amaba full stop amaba question mark amaba exclamation mark. It's important to be as clear and detailed as possible but in a small amount of space. macnaha hadda halka aan eegno okay bullets ayaa la isticmaalay 1 2 3 bullets. Okay, 3 to 5 ayaa la isticmaalaya marka halkan مسؤوليات qofka shaqada uu soo qabtay. طبعا ii sheeg muxuu ahaa xaguu ku ogaanaa sideen waxaan ku qoraa. طبعا laba mid way ku dhici kartaa. number 1 shaqadii adaaba soo qabataba hadad macallin ahayd accountant ahayd manager ahayd waxaad ogtahay mas'uuliyaadkan qaban jirtay. sidoo kale contractigi markaad shaqadaas ka shaqeynaysay job description ayaa jiro laana qofka markuu shaqaale uu noqdo waxaa la siinayaa job description oo cadeynayo waxyaabaha mas'uuliyaadka saaran. halkaasna waad ka heli kartaa howlihii aad qabanaysay. anyway halkan waxaa la yidhi bullets ayaa la isticmaalayaa. bulletskiina there is no punctuation marks here. There is no punctuation marks because they are not complete sentences. So marka you need to be as brief as possible or the tafaasiil badan lagama rabo because remember macnaha CV-ga nafirkiisa ba laba ilaa hal page ah. So there is no space for you to give a lot of details. waxaad u baahan tahay to be short, specific and in summary inaad u qorto. It's important also to be as clear and detailed as possible but in a small amount of space. Remember that employers want to know how you are different from other candidates. Think about what you have done well in past experiences and include those details with strong verbs. macnaha halkan waxaa lagu leeyahay shaqadii aad soo qabanaysay amaba aad soo qabatay markaad macallin ahayd ama accountant ama manager ama the head department yani way tira badan tahay mas'uuliyaadkaas. يعني waxaa laga yaabaa hal page aad ku qori kartaa iyo laba page laakiin waxaa lagu yidhi focus ka saar kuwa ugu muhiimsan. Pay attention to them. Give specific attention to them kuwaas because kuwaas waa kuwa outstanding ka dhigayo amaba qof ka duwan dadka kale waxa ay qabanayeen. isticmaal strong verbs. isticmaal for example, did you make your company more efficient or organized? For example, look at Temok's second experience as a program assistant. Okay, halkan fiiri. Yeah, arranged special events, assisted program, reorganized. So marka waa verbs, you don't say did. If you say did, did, okay, did special events, for example. If I say did it is a generic verb waa erey general ah oo aan specific ahayn. waxaa lagu yidhi use strong verbs here. Okay, or specific ah. Say arranged, developed, managed, edited, and so on and so forth. halkaas waxaa inoogu soo idlaaday qaybtii ku saabsaneed job experience of the CV. waxaan u gudbaynaa qaybta ku saabsan educationka. intaan ku kulmaynayna xisadaas waxaa idinka tegaya fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu.